waxa uu ahaa duulimaad qaatay 40 ilbiriqsi oo keliya. helikobtarka qumaatiga u kacay droniska ayaa ku gaafuray kadib inta aanu ku dul degin meeraha Mars. helikobtarkan caaqilka ee NASA ayaa taariikhda gelaya. tanina waxay ahayd dareenka markii ay ogaadeen in howlgalka lagu guuleystay. bini aadamku weli kumay kor duulin helikobtar meel ka baxsan adduunka, balse hadda ma dhihi doono taasi ma dhicin. aadanuhu waxay gaareen oo ay helikobtar ku wadeen meerayaasha kale, marka waa tallaabo weyn oo uu aadanuhu qaaday. helikobtarka ayaa qaaday sawiro. sawirkan waxa uu qaaday markii uu ku dul heehaabaya meeraha, kana in yar ka hor inta aanu caga dhigan. ilaa iyo hadda lama ogeyn in meerahan lagu dul degi karo. duulimaadyadan ayaa tijaabinaya xadka tiknoolajiyada. dayuuradan waxaa ku rakiban saxuunta solarka ee cadceedda ku shaqaysa iyo heer kulbeeg u ogolaanaya in helikobtarku aanu waxna ku noqonayn markii ay darajada qabowga ka hoos martay 80 digrii. duulimaad walba saynisyahannadu waxay helikobtarka u dejinayaan qorshe, balse helikobtarka ayaa laf ahaantiisa gaari kara go'aano u gaar ah. kaamirooyinka tayadooda sarraysa ayaa garan kara dhulka kala sarreeya ee buuraleyda, iyagoo durbaba beddelaya dhererka helikobtarka si uu u gudbo caqabadaha hor yaallo. helikobtarka waxaa kaloo dhagxanta uu isticmaali karaa inuu ka tilmaam qaato, taasoo u sahlaysa inuu dhulka hoos ugu sii daadego. duulimaadyadani waa bilow. maalmaha soo socdana helikobtarka ayaa bilaabi doona duulimaadyo uu ku tegayo cirifyada fogfog ee meeraha Mars. tanina waxay wax weyn ka beddelaysaa fikirka aanu ka haysanay meerahan. helikobtaradu waxay gaari karaan dhul fog, waxaana loo isticmaali karaa in lagu sahmiyo meelaha uu robotku awoodin inuu gaaro. waxay isku dabaridi karaan xogta sayniska. safarada mustaqbalka ee aadanaha ayaa iyana loo isticmaali karaa helikobtarada aanan cidna wadin. marka fursado badan ayaa jiro. 100 sano ka hor ayay ahayd markii 2 wiil oo walaalaha ay sameeyeen dayuuradii ugu horreysay. haatanna dayuuradan yar ee droniska ayaa marag u ah in duulimaadyada sahminta ee meerayaasha kale ay haatan ka fududahay sidii hore.